madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Sayid Cabdullaahi Dani ayaa daafuray duulimaadyada shirkadda caalamiga ah ee Ethiopian Airlines oo markii ugu horeysay soo dhigatay Puntland. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa ah shirkad caan ka ah caalamka iyo Afrika, waxayna diyaaradaheedu duulimaadyo caalami ah ku tagaan wadamada caalamka. daafurka duulimaadyada shirkadaas ayaa waxaa madaxweynaha ku helinay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo ku-xigeenka madaxa shirkadda Ethiopian Airlines iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha Puntland oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in daafurka duulimaadyada caalamiga ah ee Ethiopian Airlines ay tahay guul u soo hayatay Puntland, wuxuuna hoosta ka xariiqay in guushaasi ku hirgashay isku duubnida Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, golayaasha dowladda, golaha wasiirada, baarlamaanka iyo garsoorka, konsulka iyo madaxda kale ee dowladda Ethiopia, mas'uuliyiinta ka socda shirkadda Ethiopian Airlines, ganacsatada, dhammaan dadka xafladan qiimaha weyn leh maanta ka soo qayb galay dhammaantiin waad salaamantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxay ii tahay sharaf inaan maanta halka u nimaanno in aan dhammaystirno qayb ka mid ah dadaalkii dheeraa ee dadka reer Puntland ugu soo jireen siday Puntland u heli lahayd inay noqoto dal degan, nabdoon, adeeg u dhammaystiran uu leeyahay, caalamka ku xiran, noloshoodana hore u sii wada. waxaan maanta taagannahay garoonka jenaraal maxamed abshir ood og tihiin astayntiisu inay soo bilaabantay allah u naxariistay xilligii cabdullaahi yuusuf. qayb uu ka soo qaatay dhismihiisa qayb jenaraal cadde, madaxweyne cabdiraxmaan uu qayb weyn ka qaatay sidii loo heli lahaa dhismahan, madaxweyne cabdiweli uu u dhammaystiri lahaa inuu hirgalo. aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradeenna aan nasiib u helnay falaydkii u horreeyey eba ee ah international carrier oo adduunka dhan ku xiran. dabcan garoon international u ahaa inuu maanta bilowdo. waxaan aad uga mahad celinayaa intii ka soo shaqaysa dhammaan dowladda Itoobiya. aad baan ugu mahad celinaa. sida wasiirku sheegayna waxaan ballan qaadaynaa inaanu si dhow ula shaqayno noocayta ama amni ha ahaato ama service ha ahaato. maanta waxaa inoo bilaabmay isu socodkii dowladda aan walaalanahay Puntland. waxaan ka rajaynaynaa hawshaa maanta inoo bilaabantay waa hal mid bay ka tahay baahida aan u qabno dowladda Puntland. waxaan rajaynayaa inay ku xigto xaggii ganacsigii, horumarkii iyo amnigii inay noogu xigaan baan rajaynayaa. haddii aan la yidhi iyadana si degdega ayaan u rajaynaynaa. የተከበሩ የፑንትላንድ ፕሬዝዳንት ሳይድ አብዱላሂ እንደነ መደወኛ እንደተ ፑንትላንድ ፕሬዝዳንት አብዱላሂ ደኒ እንዲሁም ምክትል ፕሬዝዳንት አህመድ ክራሽ የመደወኛ ኩየካ አህመድ ክራሽ ሲቪል አቪዬሽን ሚኒስትር ሚስተር ኤልያስ እና ዱብሊማት ካወደ ወዝክ ዱብሊማት ካወደ ሙዛራ ኤልያስ እንዲሁም የተለያዩ ሚኒስትሮች የወዝረዳ ሸረፍ ላይ ደረጃ ፑንትላንድ ሀርከን ጆራ የከተማ ነዋሪዎች የፑንትላንድ ህዝቦች ለማሽ አብረር ፑንትላንድ የተከተቻ ደበረ አብረን በመጀመሪያ በዚህች በዛሬዋ ታሪካዊ ቀን መርከረ ማንት ማን ታሪክ ያወጣላ ያንተ ሀገር ክፍሎች ዲዮ ንግግር ለማድረግ በመጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና የሚሾዱ ወይ ወጋወና ካዶ አባውደማ ወማድኝ ያደረጉት ፕላን በዛሬው ዕለት በይፋ የተጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ
maanta duulimaadka ugu horreeyey ee dowladda Ethiopia leedahay Ethiopia Airlines የኢትዮጵያና የፑንትላንድ ሶማሊያን በፑንትላንድ ህዝብ በእጅጉ የሚያጠናክር ከመሆን ባሻገር ኢትዮጵያ የደወለደ ፑንትላንድ ወደ ሀገር ሱሉ ሆነች ዲያራት ከስከው በኢኮኖሚና በፖለቲካ ሌላ ሀገራ የሲያሰታ በማወራው ትስስር እስቱዕዳ ብሾሪጋ እጅግ የሚያጠናክር ነው ተብሎ ይታሰባል። ወአንተና ምቲ አከና ሆኖ ሲፋን ለረባ የተያያይታል dhinaca kale madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Abdullaahi Dani ayaa sheegay waa sida uu hadalku u dhigay in Puntland Soomaaliya inteeda kale uga duwan tahay hoggaanka suuban wuxuuna ka digay in dhalinyarada si qaldan loo adeegsado wuxuuna sheegay in Puntland aanay cidna ka ogolaaneyn inay nidaamkeeda ay burburiyaan taariikhdaas aan ka soo sheekeeyay horumarka waxa gaarsiiyay waa hoggaan Puntland waxa ay kaga duwan tahay Soomaaliya inteeda kale oo aan rajaynayno inay ka baxdo waa hoggaankaas mas'uulka ahaa oo dadkiisa u naxayay oo danihiisa ka shaqaynayay iyo dadkiisa ku kalsoonaa hoggaankooda oo horumarkaas la garab taagnaa waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhalinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasab ahayn in aan hoggaan uu fiican yahay Puntland baa daliil u ah waxaan qirayaa ninka ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyay inay nagu daydaan bay munaasab ah ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxaan jirin waa akhriyo Puntland ayaa muddooyinkii u dambeysay bilowday dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ayna ka mid yihiin garoomada waxaana garoomo diyaaradeed oo caalami ah laga hirgeliyay magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe waxaana caqabada koowaad ee garoomadaasi haysatay ahayd in aanay diyaaradda caalami aysan imaan jirin balse imaantinka Ethiopian Airlines waxa ay meesha ka saari doontaa baahida loo qabay duulimaadyo caalami ah Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Garowe.